بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka arrimaha gariibka oo afweyn oo barnaamijka waxaan ku horjeednaa bisha Ramadaan maxaa ka tiriyada ay ka qayb galayaan dad lacag Soomaaliya waxaan doonaa ilaa kulli laba su'aal وليان تجلس ما أبى كار وهي كار مليون أو شيلين كصومالي لنا مالك استوى شوكتا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي وناكسنا خيارت قيمها بدنا هودا نقل سعوتاي مالك استوى شوكتان waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Kasmaal oo hadahan oo kale aad kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliland iyo raadiyo Hargeysa barnaamijka waxaanu ku casuunaa ka qayb qaatayaasha bisha Ramadaan oo markaasi ay ka qayb galayaan dad u tartamaya lacagna 3 milyan oo shilinka Soomaaliland waxaana barnaamijka weydiin doonaa ilaa 22 su'aalood 10 su'aalood oo kamid ah qofku hadii uu garto waxa uu heli doonaa lacag dhan 250,000 oo shilinka Soomaaliland hadii uu garto markaasi 15 su'aaloodna waxa ay noqon doontaa 750,000 oo shilinka Soomaaliland hadii uu garto 20 su'aaloodna waxa ay noqon doontaa milyan iyo badh ama milyan iyo 500 oo shilinka Soomaaliland hal su'aal ayaa jirta oo ah 22 taasi oo ah milyan iyo badh 22 kaasi su'aalood qofku haduu wada gartana waxay noqon doontaa 3 milyan oo shilinka Soomaaliland meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Kasmaal kulanti wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay meel kasta aad joogtaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa iyagana akhyaarta igula sugan studio telefishinka qaranka Soomaaliland kuwaasoo iyaguna dabcan caawin doona qof kasta oo ka qayb galaya laba jeer oo kamida oo ay markaasi kamid ah su'aalaha soo bixi doona weydiin doona dadweynaha si nala jooga kadibna ay uga jawaabi doonaan iyo laba jeer oo min laba aan ka tuuri doona iyagana dadka igula sugan studio ayaan aad ugu mahadcelinayaa kuna soo dhawaada meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka waxaanu yeedhi doonaa ka qayb qaataha koowaad ee barnaamijka ka qayb qaataha koowaad ee barnaamijku waxa weeye Xamse Deeq Daahir loo saabiyo السلام عليكم حمزة داق ظاهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل دو برنامج كسبان. عندوي. داق واحد تفاصيل قصص أرضت هاي الكاد دقنت هاي أنا جيت داود أشوف كلام على نفسي. أنا واحد جاني حافظة دامي وحن هاي أرضي نكتا سكول بيار عين سنة. إن حمزة إن البرنامج كله هرو داوتيان كذا. داوت شلون هرو داوت. برنامج معلومات كسوة أصلا. بالبرنامج كورن sidoo barnaamijku kuleeyahay barnaamijku horta walaa xagga dhankayga markaan eego barnaamij aad iyo aad u wanaagsan weeyaan Xamse waxaad u xusnaataa laba jeer inaan min laba ka tuuri doono markii su'aalo bilaabmaan laba jeerna dadweynuhu caawin doonaan waan ku bilaabi doonaa bismillaah su'aasha koobaad waxay ku oranaysaa wiilka dhasha iyadoo habeen la gudayo waxa loo baxshaa wiilka dhasha iyadoo habeen la gudayo waxa loo baxshaa ba guulane ta guure ja gaagaab ha giire wala xamse habeen baa dhalaa torta Soomaali ma garanay way ku ma sheegay ma weydiin de lagu sheegay أنا هي حمزة تال كورة تاضوا كورة كواد كسنسة وهاجاك داود يلتا أو قراين وذيك دونا جوابت السؤال شو صح وهاجاك سؤال شلبات magaala madaxda dalka Masar waa ba Djibouti ta Nairobi ja Qaahira ha Alexandria
qaahira jaada codka kor u qaad jaada qaahira ja oo qaahira ah ah inaan laba kaa tuuriyo dadweynuhuba waa fursaday u ka adhsan laba ka turba laba ka mid a laba ka mid a ayaa kaa saari doona ja oo qaahira ah iyo xa oo aliskandariya isku saare iskandariya xaal xa oo aliskandariya magaala madaxda dalka masar waa xa oo aliskandariya go-aankaaga u dambeeya xamsi go-aanka gaadh magaala madaxda dalka masar qaahira ja oo qaahiraan dib ugu noqona magaala madaxda dalka masar waa ja qaahira go-aankaaga u dambeeya ja oo qaahira ayaynu wada eegi doonaa su-aashaasi jawaabteeda ayaynu eegi doonaa su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay xamse waynu siganay saddex su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa dalkii ugu horreeyey ee diyaarad sameeyaa waxa uu ahaa dalkii ugu horreeyey ee diyaarad sameeyaa waxa uu ahaa ba ingiriiska ta shiinaha ja ruushka xa maraykanka ja oo ruushka may ha ruushka ja oo ruushka ah way weli inaan laba kaa tuuriyo dadweynuhu waa fursadee u ka adhsan dadweynaha laga yaaba inay waddankii sameeyey joogaan baa suuragal in ka dhexelo waxaan usoo noqon doonaa dadweynaha igula sugan stuudia waxaan doonaynaa inaad nacaawisaan aniga iyo xamse waxaanu maraynaa su-aasha saddexaad su-aasha saddexaadna waxayd odhanaysaa dalkii ugu horreeyey ee diyaarad sameeyaa waxa uu ahaa ba ingiriiska ta shiinaha ja ruushka xa maraykanka imise qof ayaa le waxa uu ahaa ba ingiriiska imise qof ayaale ta waxa uu ahaa shiinaha imise qof ayaa le ja waxa uu ahaa ruushka imise qof ayaa le xa waxa uu ahaa maraykanka aan isku soo noqono xamse afar qof oo ka mida dadweynaha inala joogaa waxay nagu yidhaahdeen waa ba oo waa ingiriiska laba qof oo ka midina waxay nagu yidhahdeen waa ja oo waa ruushka ilaa 11 qofna waxay nagu yidhahdeen waa xa oo waa maraykanka wuxuuda dhan laakiin waa soo jeedin badi dadkaasi way ka aamusay lakiin intay garanayeen bay dhaaftay badankooda go-aanka saadigaa iskale ingiriiska badankoodsa ba oo ingiriiska ah laba qof oo ka mid a dadweynaha nagu yidhi waa ingiriiska in ka badan 11 qofna waxay nagu yidhahdeen waa maraykanka marka soo jeedin weya waxooda lakiin adiga go-aanka iskale labadaa qof baynu ku raacnaaye ingiriiska maraykankaas ku raacaya maraykanka ku raacayna ah hadday dadkaa faraha badan ina qaldaan ka warno labadaa qof ay sax noqdaan raacid hadday dadkaa badan ina saxaana waan magaceena oo mahadcelinaa waa hagaag daawadayaal xa oo maraykankaa ayaynu wada eegi doonaa xa oo maraykankaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wada eegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay mar kalena aada loogu sacabiyo 10kaa qof waa hagaag afar ayaan soo gaadhnay su-aasha afraad xamse su-aasha afraad waxay ku odhanaysaa xayawaanka ay carabtii hore ugu yeedhi jireen 150 magac 1500 oo magac waa su-aasha afraad xayawaanka ay carabtii hore ugu yeedhi jireen 1500 oo magac waa xayawaanka ay carabtii hore ugu yeedhi jireen 1500 oo magac waa ba nibiriga ta libaaxa ja shabeelka xa maroodiga xamse
laba ka mid iga tur codka kharuqa laba ka mid iga tur laba ka mida ayaan kaa saari doona waxaa isku soo hadhay ta oo libaaxa ah iyo ja oo shabeelka ah ja oo shabeelka ja oo shabeelka ah ah go-aankaaga u dambeeya ja ja oo shabeelka ah ku adkaysanaysaa ah waa hagaag daawadayaal xayawaanka ay carabtu ugu yeedhi jireen carabtii hore weeye 1500 oo magac waa ja oo shabeelka ah go-aankaaga u dambeeya ah ja oo shabeelka jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi qalad ayay ku tahay waa libaaxa aada iyo aada lagu sacbiyo waxaan u yeedhi doonaa ka qayb qaataha labaad ee barnaamijka ka qayb qaataha labaad ee barnaamijku waxa weeye iid xaashi xirsi iid xaashi xirsi aa loo sacbiyo asalaamu calaykum iid xaashi xirsi calaykum asalaam cabdirasaaq kusoo dhawo barnaamijka kasmaal waan dhowahay iid waxaa tafaasiil iga siisa halka aad degan tahay inaad arday tahay haddii aad shaqo kala hayso anigii daawadayaashaba wixii aad tafaasiilna siin karto okay bismillahi raxmaan raxiim magacayga marka hore soo sheegtay waa iid xaashi xirsi waxaan deganahay gobolka cagaaran gaar ahaan caasimadiisa gabiley waxaan ahay arday dhigta dugsiga sare qalax secondary school ee ku yaala gobolka gabiley waxaan foonfoorada sanadka baxay insha allah imtixaanka sanadka u fadhiisto iid barnaamijka waxaad uga timi gabiley goormaa lagula soo hadlay ilaa 5 iyo 50 mir shantii iyo konton marka waxaa lagu sheegay inaad barnaamijka ku guuleysatay si fiican in barnaamijkan intaad gabiley joogtay hore ma u daawatay si fiican 4 sano ugu dambeysay waan daawanay aad baa u daawanaysay barnaamijkan siduu kula muuqday marka wallahi barnaamij aad u wanaagsan oo dhaqanka iyo diinteena hor soo qaaday marka saakaad soo baxday markaa barnaamijka soo deegay marka gabiley waa iska roobaneed oo xaalad aad bay fiican geedi jacalkuna si fiican ugu baxay dadka garabkiisa ma sha Allah runtii tartamii labaad ee gobolka gabiley ka yimaada tahay hal qof baa ka soo horeeyay intii barnaamijka wadnay bisha Ramadaan aad baan ku soo dhaweynaynaa gabileyna dabcan aad baa laga daawanayaa oo lagana dhageysanaya radio Hargeysa runtii si fiican waana ku bilaabayaa hadii la yiraahdo waxaad u xasuunataa laba jeer inay dadweynuhu caawin doonaan laba jeerna min labaan ka tuuri doono bismillah su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa dagaal wiil baa ku dhintee wiil dagaal wiil baa ku dhintee wiil ba kuma naf helo ta kuma shahiido ja kuma dhasho xa kuma lacag helo bismillah haddaan isku dayo su-aasha jawaabteeda waa ja oo ah dagaal wiil kuma dhintee wiil baa ku dhashay dagaal wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho ja kuma dhasho dagaal wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho ja ku adkaysanaysaa si fiican inaan laba jeer dadweynaha in caawiyaan inaan laba kaa tuuraba fursado ku badnaa waa xilligeena la sugan odobta xabadda si fiican waa hagaag daawadayaal ja oo ah dagaal wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay laba su-aasha labaad magaalada xadka ku taalla ee Lowyacaddo waxay hoos tagtaa gobolka magaalada xadka ku taalla ee Lowyacaddo waxay hoos tagtaa gobolka ba salal ta saraar ja sanaag xa saaxil wareey bismillah Lowyacaddo ma aragto soo Lowyacaddo maqlanayo xageer Djibouti marka naga yimaadaan ba Lowyacaddo ay ka sheekayaan ma tigi dhigti ma ka maqlanayaa ay bismillah haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waxay noqonaysaa ba oo salala ba oo salala inaan laba kaa tuuriyo dadweynuba fursadee u kaadhsan taabaan ku kalsoonay ku adkaysanaysaa si fiican magaalada xadka ku taalla ee Lowyacaddo waxay hoos tagtaa gobolka ba salal go-aankaaga u dambeeya waa kamid iga turban waa hagaag daawadayaal ba oo salala ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha
saddexaad su-aasha saddexaad su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa malaa'igtii dagaalkii beder ka qeyb gashay ee muslimiinta u hiilisay tiradoodu waxa ay ahayd malaa'igtii dagaalkii beder ka qeyb gashay ee muslimiinta u hiilisay tiradoodu waxa ay ahayd ba 2,000 oo malag ta 3,000 oo malag ja 4,000 oo malag xa 5,000 oo malag bismillaah haddaan isku dayo su-aasha jawaabteeda waa ta oo 3,000 oo malaga ta oo 3,000 oo malaga waa fursad inaan laba kaa tuuro iyo dadweynuhuba inoo harsan ana waa taasi waqtigeena sugan go-aankaaga u dambeeya ta oo 3,000 oo malaga ta oo 3,000 oo malaga fursad baan ku siinayaa dadweynuhuna waa inoo harsan yihiin inaan laba kaa tuuraan inoo harsan tahay saddexna waynu marana calaamadii laba iga tuur laba ka mid a laba ka mida ayaan kaa saari doonaa waxaa isku soo hadhay ta 3,000 oo malag iyo xa waa 5,000 oo malag 3,000 oo malaga tayda aan ku adkaysan taad ku adkaysan 3,000 oo malag wataa go-aankaaga u dambeeya iid xaash 5,000 oo xada xa waa 5,000 oo malag ta baan ka nimaadna magaxa abaan nimaadna go-aankaaga u dambeeya xada xa 5,000 oo malaga waa hagaag daawadayaal xa waxaynu wadeegi doonaa 5,000 oo malag oo dagaalkaasi beder oo dagaalkii ugu horreeyay ee muslimiintu ay galaan kuna guulaystaan jawaabta su-aashaasi waa sax su-aasha afaraad cayayaanka loo yaqaano sangaaluhu wuxuu ku dhashaa su-aasha afaraad cayayaanka loo yaqaano sangaaluhu wuxuu ku dhashaa ba fardaha ta geela ja ariga xa lo-da ba oo fardaha ba oo fardaha inaan laba kaa tuuro iyo dadweynuhu waynu harsan yihiin iid xash dadweynuhu dhibin qaar fardaha arkeen qaar sangaalaha arka lo-da isaga kuma dhasho sooma waxaan malaynaya waagaag daawadayaal inaadna caawisaan ayaan doonaynaa waxaanu maraynaa afar aniga iyo iidba iid xaashi akhyaarta stuudiyaa nagula sugan su-aashu waxay la odhanaysaa cayayaanka loo yaqaano sangaaluhu wuxuu ku dhashaa ba fardaha ta geela ja adhiga xa lo-da imise qof ayaa le waxa uu ku dhashaa ba fardaha imise qof ayaa le ta waxa uu ku dhashaa geela imise qof ayaa le ja waxa uu ku dhashaa adhiga imise qof ayaa le xa waxa uu ku dhashaa lo-da aan isku soo noqono badi dadkaasi cod aqlabiyad waxay nagu yidhaahdeen adhiga hal qofna waxay nagu yidhi waa geela markaa go-aanka adigaas kale iyana laba kusii mar baynoo harsane laba ka mid aan toog majority leaders minority-gan raacnayo taa dadku badan yihiin adhigan odhan dadka badan baa hogaaminaya dadka go-aankaaga u dambeya hadday dadkaasina qaldaan ka war aad ba mahadsan kulli qalad isbilahay inta garanaya ma dhaafta haddayna saxaana aad ba mahadsan yihin labada jeer waa hagaag daawadayaal ja oo adhiga ayaynu markaasi wada eegi doonaa jawaabta su-aashaasi oo dadweynaha cod aqlabiyada ay ku yidhaahdeen iid xaashi waa adhiga jawaabta su-aashaasi ayaynu wada eegi doonaa inay sidaasi sax ku tahay ama qalad jawaabta su-aashaasi waa qalad aada umaadsan aada lagu sacday waxaan u yeedhi doonaa markan martida barnaamijku waa abwaan ciro aada loogu sacbiyo asalaamu calaykum abwaan xuseen jabriil
kusoo dhawow barnaamijka Kismaal waan kusoo dhawaay Abu Xuseen Jibriil waxaad iga warantaa inaad barnaamijka Kismaal daawatiyo hortoona waad igala qayb gashay doorkan barnaamijka ma daawatay aad iyo aad baan u daawadaa haye habeen walba saas baan u horfadhiya intaasoo dada bulshada intaa leeg waan kala qayb galay habeenkii baan daawadaa haye habeenkii aad iyo aad baan u laakiin dee intan la wada garan lahayo baad wada garanaysaa marba isla muraayada magu gashayo taa dhimata waa taan cisho dhaweyd ku soo weydiinaya kolka qofka aabihii dhinto iyo caloosha ku jira maxaa laga soo jawaab markaa kula wani ku soo garaacay een ku dee waxaa la yidhaha ama ciilmooge ina tana waxaa la yidhaha ciilmoog ina kale warmoogaa la yidhaha waataan kusoo garaacay habada sidaas sax ku wada garanaysaa Abu Xuseen Jibriil sugaantaadu way fara badan tahay barnaamijka hore Kismaal qaar baan nagala qayb gashay waqtiga qaaliga aad baan kugu mahadcelinay waxaad sugaantaadu aad uga hadashaa wadciyo kala duwan oo marba xaalad jirta waxaan aad u xasuustaa inaad arrimaha tahriibta oo aafo weyn oo dhalinyarta fara badan leh haysata tahay aad dhowr jeer uga hadashay war tahriibta maxaad ka tiriyadan tahriibta dadkeennii balaa ku dhacday waa aafoobay dhalinyarta daayarta waanaan u ducaynaynaa ilaahay inuu caruurteena wadanka jeclaysiiyo iyadoo imika waxaa soo wadaa riwaayad la yidhaa atahriibtina iyaad u tegaysaa bal iyaad u tegaysaa ma abbaa kaa horeeya ma hooyaa kaa horeysa ma cid alla cid ka horeysaa ma jirta waxaa ka horeysa ajnabi ajnabi unbaa ka horeeya kolkaa barbaartii waxa weeyi baa sidaasi barbaartii maxaa ku dhacay malaha waan baaban lahay balay naga baydh baloy intee dhalinyaro bigtiri doonyaha baalaha qabsaday intee badan lagu dhex guray intay baaluhu cuneen intay BBC-diyo idaacada baafiyeen bidhoodaba aan lahayn shaydaanku ayuu ku bixin naftaadana ayuu bedeli halaag iyo buuqu geli iyuu been ku akri iyuu badan ku sawir dhulkaaga barwaaqada haddaad baarbaartaan ciidiina beerataan haddaad beder iyo galley haddaad basasha iyo toon haddaad liin iyo babaay tamaandhi iyo baytaraaf xabxabka buuraha ka weyn haddaad baradhada qodaan haddaad muus beerataan baahidu way hadhi lahayd bil baad taajiri lahayd bakhaaraad furan lahayd baabuuraad gadan lahayd midhaha caynka u badan doonyaad buuxini lahayd badaa laga dhoofin laha musarigaabad baranay dib lagu shaxaadi lahaa haa adaaba lagu shaxaadi bala taasi waa taa barbaartii dalkayge yurub looga baaqee basanbaaska saxaro baahidu ku laysaay intaad gaal baryi lahayd boy kaminku odhan laha baaruu ku geyn laha baydh khamriya ku siin laha diintaba kaa balayn laha adoo bacadka jiibsaday bilayskuu ku qaban laha yuu baad ku odhan lahaa macalaag baa loogu daray yuu baad ku odhan lahaa waxa kaaga bili roon adigoo bahdaadayo baradaad ku noolayd aabbahaa bulaaliyo bilan hooyadeedii bilan hooyadaadii barbarkeega joogood allahaaga beridood beertaada qoditay taasaa kaaga bili waa fariin aad u fiican runtii waana fara badan yihiin sugaantaad kaga hadashaa arrimahaas laakiin barnaamijkoo kooban baan doonayaa inaynu ka wareegno halkaasoo meel kale u wareegno sheekooyin fara badan baad leedahay oo sheekadii waxay dadku aad u xasuustaan kasmaalkii hore aynu kaga hadlay arrimaha aqoonsiga somaliland oo iyaduna sheeko aad u xiiso badan sheeko kaloo runaa jirto iyaguna sheekooyinka kusoo maray ay ka mid yihiin oo ahayd sheekadii adiga iyo wankaydi dhex martay sheekada adiga iyo wankaydi dhex martaan doonayaa inaan barnaamijka iyadana waxway kaga hadalaa hadii alla idhaa wallahi cabdirasaaq oo wankaasi moobilka kolkaan u duceeyaa waa kolkaa moobilka isgaadhsiin oo dhan imika marshaad doonto adduunyada qofka jooga halkan aad kala sheekaysanaysa saasaad hor fadhida haloo baad odhanayso labar baad garaacaysa labar ma jirin fariini ma jirin cidaad sii dirataa ma jirin ina baanu sheekaysanay gabadhii cagaf baa wado beeraha qodi jiray cagafta beeraha qoda darwal baana laaloobar baabuur baa kaxaysta cid laan dhigtay inantina waxaanu barnay caawa lagu qaadayo dee lagu soo mehelinaya waan gartay dabeed
inantii saasaan ku ballanno dee sii labiso iska sii joogo saasaan kaga imi heerka usii diyaar garo haa haye inamadiina waxaan yidhi baabuurka iska saddex fadhiya halkanay mana saamey iyo sheekhiiba haa arrin baa iga dambeeyey haye aabbaheed baa waa farjida haye oo geesanay geesuu sidaa u kala jeedaan sida dibida haye oo dadilaa iyo isaw aqalka adhiguu laba habeen u dhacay odayguna golahu fadhiyay haye wankiibuu arkay oo adhiga u dhacaya ariga uu laynaya markaa adhiga waa laga ilaalinaya oo baraarkaa lagula xereeyaa subalka adhiga jiilaalkii wuu garacdayba adhigaasi leedoo naf ma yeesho gugii unbaa kolbaa subalka lagu sii daayaa maalin qura xidigaa loo eegaa maalintaasaa meeshuu doonaha joogay sidii waxay dadku mobil haystaan ila la yidhaha xalay baa adhigii lagu sii daayay subalka yaa la yidhaha inta kalena waa laga ilaaliya dabeedna wankii baa adhiga idihiiba u dhacay haye odaygii uu ka gaadhay habeenkii dambena wuu eego wuu dhacay inanti way seexatayba wankii unbuu xadhi ku soo xidhay dheero docdii inata ayuu ku xidhay unbuu ku xidhay shaw cadowbaaba meesha igu jiray anigu ma ogi haye gurigi baad tifaadnaa waan iska soo socday baraadliide moobil ma jiro waxa ma jiro daah buu aqal ku leeyahy waa aqal yaro qurux badan sida ilaa inintanan sii socsoba kolkuu bidhaantayda arkayba dib buu faaganaya hadduu waraaba kusoo baxo waa dadi sidaadii aan madaxaa soo horeysa unbaa ismadaxii sidaada aan iyo igu soo maqay hogogogogogog hig badaq bartaasaan ku dhacay dhulkaa kula wareegay haa gebigay waxba kala garay koomaban kale shaadhkaygii wada dhiig sidaasaa looga waxaa idhi allaadeer allaadeer waa ladanigadi anigu waxaan moodaya odagii tocday urda burigu odaygiina taabidir madax ku qaadaad mooday haa odaygina budlaaba la odhan jiray oo nin khatar oo waa laga boqisay oo shangadhaa yaraynaya caawu kuheenu god ku galay baan idho kolkaan allaadeer igada waa ladana idhi unbu wankii intaa la soo baxay oo timahaygii geesihiisa bay bar ku yaalyaalaan timahay intaa le woo dhash maiga siiye ilaahay baan ku dhaartay timahaygii geesihiisaan ka arkay dabeedna waxaan idhi waad ladan tahay kole duwanku dile taw baan idhi orod baan isqaaday aayar gaadhigii shaarkii dhexdaan ku tago dhiiggiina kaa socda dhiigga garankii oo dhan baa haddana qoyqoyey baabuurkii baan kacaysan magaaladii baanu tagnay waa kala bayn haddaad farmasiiga waradhe farmasiiga maku geynaa waree maya 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 sheekaday badinayaano nabarkani xaggu kugu gaadhay yaa maxaa kugu dhacay yaad istishay sheekada uniga waa dhow way qarxaysa naga daa waxba may ma jirto dhaan biyo ah baan dhex tegey garankii iyo dharkaygii oo dhan baan dhiigga isaga maydhay waynu iga go-ay kio qoyan baa sidii ku tegey xaafadii oo dharkii isaga bedelay kaasaa iigu daray cabdirasaaq dee jacaylkan iminku waa jacayl maarakatuye jacaylkii hore jacaylada jiru ahaa jacaylka imika cabdirasaaq kaaga warramo inama yare baa ina jeclaanaya inantu salad bay haysataa salad bay haysataa maqaaxina way haysataa halkaa dambey ku qayilayaan kolkaasuu yidhaa ayee shalay waxaad igu lahayd laba rubce laba rubc oo kalena nasi waa lagu qorayaa intii horena wuu qadimi jiray ee unata jeclaaday imikana wuu jecel yahay jacayl baayo xidhiir kusii xoojinaya haa inatii 15 malaha rubuc kolkay ku yeelatay ay meeshiiba kacday iyo qaar ku dareero waxay dhaheen naye intaanu lafaaga ku culin jacayl baad sheegaysaa ninkan baad sagaan haa jacaylku in halis dadka u yahay baalku horta waa quutal bahay dadkeena wuu daray ninka si caqli darana wuu sii dilaaba dabeedna
inantii way qaaday oo inankii saladii baa kacday markaasay qabatay waxay geysay anugu waa fadhiyaa meesha dabeedna kolkaasaa la yidhi maxaad usiisay anaaba ka qabtay maxaa adeerkuu kalifay waxa duguna wuxuu yidhi yartii doonku jeclaaday dadar baan ka abaahday darteedaan u cunayey hadda darteed iyadaa loo birqaabayaba yartii doonku jeclaaday dadar baan ka abaahday darteedaan u cunayey isma baanaan dileena dabaday ka wadeeno way igu soo dirayeen jacayl xaasid ma waayo isma baanaan dileene dabaday ka wadeeno wuu isukaayo direen bu cuma dagaal bay igu qaado cumahay idigsiiso damiin bay iga kaxeeyo damiinkuna waa anig oo dee waan ka buslahay damiin bay iga kaxeeyey bu wuxuu yidhi jacayl dayn lagu yeeshay dib u soo mari maayo dariiqii kolligeyga martaasuu ka baxay jacayl qaana u darane adduunyada jacayl dayn lagu yeesho ugu dambayntii xuseen jibriil waxaan doonaynaa qeyb baa inoo socotay maansadii dhanxiir waxaynu maraynay somaliland baan marayno halkaas aynu soo gaadhno markaynu meelaha marayna aynu ku istaagno maalin dhaweyd waa anigii soo qaaday ha intii u dambeysay baa hadii la yidhaahdo aynu maanta kusoo gabagabeynaa barnaamijko habku siiqada u dhacaysa hadii la yidhaahdo maantana waynu ku bilaabi o dembigu wuu naga dhacaa adaa naga dhaafaye dhameeya ilaahayow baryadu waa naga dhabo talada ku dhiibano hortaadaan dhigay gacmehe wixii noo dhiman dhame dhibaata ninkii wade dhabada shaydaanka mara dhanxiir buu nagu noqdaye ilaahow naga dhex qabo dhaadhii kale waxaan lahaa gabdhuhu dhahi wacnaa madowgii dhalaali jiray waxay soo dhaafsadeen dhibiya waxoona lool dhibkoogii baa ka daran dhafoorkay xiirayaan gaali iidha u yihiin haddaan laga dhiidhiyayn dembi waynoo dhexoon dhibaata ninkii wade dhabada shaydaanka mara dhanxiir buu nagu noqdaya ilaahow naga dhex qabo gabdhuhu dhajisbay xidheen jidhkuu dhabu muujiyaa dhaqaaqu halisku yahay dhacdii waa tari banaan dhinaca way seexayaan dhibaatana uma arkaan haddaan laga dhiidhiyayn dembigu waynoo dhexoon dhibaata ninkii wade dhabada shaydaanka mara dhanxiir buu nagu noqdaya ilaahow naga dhex qabo dhooleeyaa baha dhigin dhegtii hooyada ha dilin jidhkaaga hadhala bedelin dhaqankeenani hadlinin dhibaata ninkii wade dhabada shaydaanka mara dhanxiir buu nagu noqdaya ilaahow naga dhex qabo dhaadhii kale waxaan lahaa askariga dhaxanta tuban dhulkiisuu heega yahay falkii dhacayou qabtaa wixii kusuu arkaa allaha dhowree amnigu ammaankayna ku sugeen dhaadhii kale waxaan lahaa dembigu wuu naga dhacaa ada naga dhaafaye dhameeya ilaahayow baryadu wa naga dhabo talada ku dhiibano hortaadaan dhigay gacmee wixii noo dhimaname watasaasay kuna tahay waagaag waxaan u yeedhi doonaa ka qayb qaataha saddexaad ee barnaamijka ka qayb qaataha saddexaad ee barnaamijku waa khadra cali cige khadra cali cige aa loo saabiyo way السلام عليكم قضن علي عيقة كسو دو برنامج كسمال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركا روان كله هاي أدبا ما ستة قضن واحد والله تفاصيل قص إنا أرضيات هاي أديان أرضيات هاي أما قولي قد شفت أدوحي معلومات هكا دقنت هاي بها waxaan deganaa xaafadda galshano waxaan ahay ardayad ka baxday dugsiga sare Nuuruddin fanfaaradii insha Allah bariid ma sha Allah doorkan dhaweyd qolka gashatay insha Allah guul baan idin rajeynaa adiga ardayda kalaba inkastoo arday fara badan ay soo mareen oo ahaa ardayda barnaamijka ka qayb qaateen sanadkan dhawaa gudbay sanadkan dhawaa imtixaanka sidoo iska fududaa ma sha Allah guul baan idin rajeynaa قد واحد هذا حسنا تاينا لبا شهر من لبا كاتوري دونا دار لبا شهر ندوين نعاون دونان ان شاء الله برنامج كنا هو ضوطا في ليه معلومات سواسة ما شاء الله واي بسم الله سؤال شكوات مقالة مدحضة قبل كهود و مقالة مدحضة قبل كهود و ب سلح لي تا قمر تا لانقير ح بل قبدلي وحادو بل قبدلان ح
oo balli gubadlaa inaan laba kaa tuuriyo dadweynihiiba waa fursadeen oo harsa waan ku adkaysanay muftaxabada haa waa hagaag xa oo balli gubadlaa ayaynu eegi doonaa magaalo madaxda gobolka hawd waa xa oo balli gubadlaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad suuradda walcasri waxay ka kooban tahay suuradda walcasri waxay ka kooban tahay ba aayad ta 2 aayadood ja 3 aayadood xa 4 aayadood waa 3 aayadood 3 aayadood waan ka gaadhsiin karnaa mar way gaaban tahay haa waan ka gaarsiin ma hubtaa haa waa hagaag 3 aayadood suuradda walcasri waxay ka kooban tahay bay tiri qadan ja oo 3 aayadooda go-aankaaga u dambeeya waa hagaag daawadayaal jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay 3 su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa kolka ay shinnidu soo hawrto waxaa la yidhaa kolka ay shinnidu soo hawrto waxaa la yidhaa ba midho ta guus ja biqil xa hadhuudh waa saada guusa ta oo guusa waa kolka ay shinnidu soo hawrto yani marka ay soo baxdo oo kale madaxa la soo baxdo oo kale xagga qodaalka iskuma fiicnin weli wax ma beertay xaafadda horteedana ka mid aan beerin xitaa waayihi fursada u ka adhsan waxa weeyaan inaa 2 jeer min 2 kaa tuuriyo dadweynaha dadweynaha insha Allah dadweynaha inaan la qaar badan wax beeray waa hagaag daawadayaal inaadna caawisaan ayaan doonaynaa aniga iyo qadan su-aasha saddexaad ayaanu maraynaa su-aasha saddexaad waxay doonaysaa dadweynaha nagula sugan stuudiyaha kolka ay shinnidu soo hawrto waxaa la yidhaa kolka ay shinnidu soo hawrto waxaa la yidhaa ba midho ta guus ja biqil xa hadhuudh imise qof ayaa le waa ba oo waxaa la yidhahdaa midho imise qof ayaa le waa ta oo waa guus imise qof ayaa le waa ja oo waa biqil imise qof ayaa le waa xa oo waa hadhuudh yaa qadan dib aan isugu soo noqono badi dadkaasi waxay nagu yidhahdeen waa biqil oo waa ja laakiin go-aanku adigu dee ma garanaysaa iyagu waa soo jeedin arrinkoodu biqilkaasaan ku daysanay jaaga haa hadayna qaldaan ka war markii dhaweydna waana qaldeen markii dhaweyd fadhiday soo maaha haye hadayna qaldaan way ku mahadsan intay garanayeen bay leen dhaaftay ja oo biqila ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay 4 masaajidkii cali bin abi daalib lagu dilay waxa uu ku yaalaa ba sacuudiga ta ciraaq ja yaman xa suuriya dadweynaha iyana 2 kaa tuuraan waa fursada inoo harsan dadweynaha marka dhan ku celina yaman baan ku adkaysanay codka kor u qaad ja-do yamana ja oo yamana dadweynaha inaanu dhibanay inaan 2 kaa tuuraaba fursada inoo harsan 2 ka tuur 2 ka mida ayaan kaa saari doonaa ja oo yamana oo dooratay iyo ta oo ciraaqa ciraaq ta oo ciraaqa go-aankaaga u dambeeya ciraaq baan ku adkaysanay masaajidkii cali bin abi daalib lagu dilay waxa uu ku yaalaa ta ciraaq go-aankaaga u dambeeya ciraaq baan ku adkaysanay waa hagaag daawadayaal jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay 5 bannaanka weyn ee goobaare wuxuu ku yaalaa gobolka bannaanka weyn ee goobaare wuxuu ku yaalaa gobolka ba saaxil ta haw ja awdal xa gabiile
hawd ta oo hawda inaan laba kaa tuuro iyo dadweynuba fursadayna harsadi min hal mar bay u kaadhisa man maqlinba gabaarta si dadweynaha diisan gabaare maad maqan markaa dadweynaha inuu dhiibayna qaar badan oo soo maraa laga yaaba inu ka dhex helo waa hagaag dadweynaha nagula sugan stuudiyaha telefishinka qaranka ayaan usoo wareegi doonaa su-aasha shanaad ayaanu maraynaa su-aasha shanaad waxay idin odhanaysaa banaanka weyn ee goobaare waxa uu ku yaalaa gobolka ba saaxil ta hawd ja awdal xa gabiile imise qof ayaa le waxa uu ku yaalaa ba gobolka saaxil imise qof ayaa le ta waxa uu ku yaalaa gobolka hawd imise qof ayaa le ja waxa uu ku yaalaa gobolka awdal imise qof ayaa le xa waxa uu ku yaalaa gobolka gabiile badi dadkaasi waa ka aamuseen dabcan xaasidnimo kama aha inaanay garanayn baa laga yaaba isla inaan qaldina laakiin saddex qof oo ka mid waxay nagu yidhaahdeen hawd afar qof oo ka midna waxay nagu yidhaahdeen awdal go-aanka laakiin adigaas iskale inaan laba kusii xaqiijinina waa fursada inuu harsano laba ka mida kasii tuuro maya hawd baan ku adkaysanay taada ta oo hawda go-aankaaga u dambeeya hasaan ku adkaysanay waa hagaag daawadayaal ta oo hawda ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi qalad ayay ku tahay waa gobolka saaxil aada loogu sacbiyo waa hagaag ka qayb qaata ugu dambeeya barnaamijka ayaan u yeedhi doonaa cabdiraxmaan daa-uud nuur cabdiraxmaan daa-uud nuur aa loo sacbiyo asalaamu calaykum cabdiraxmaan daa-uud nuur وعليكم السلام ورحمة الله kusoo dhawo barnaamijka kismaan كدوي cabdiraxmaan waxaa tafaasiil iga siisay inaad ardayta halka aad degan tahay anigii daawadayaashaba macluumaad waxaan deganahay gobolka Gabiley waxaan ahay arday dhigta secondary school qalax qalaxaa dhigata gabiile baad ka timi saaxiibka iid xaashiyo la joogana isnimada gabiile buu ka yimi gaasku iskuul baa timi maasha allah shalay baa lagula soo hadlay adiga haye markaa barnaamijka inaad ka qayb gasho ayaa lagu sheegay barnaamijka kismaan waad la socotaa soo maaha si fiican waad la socotaa barnaamijka bal ka war su-aalaha soo baxay markaa halkaa joogtay daawanaysa sida kula muuqda laba barnaamij dhinac walba taabanayo hadday noqoto diin iyo hadday noqoto dhaqanba cabdiraxmaan waxaad aad u xusnaataa inaan laba jeer min laba kaa tuuri doono laba joorna doonina caawin doonaa bismi illah su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa cabdilaahi suldaan tima cadde wuxuu ku dhashay gobolka gabiile su-aasha cabdilaahi suldaan tima cadde wuxuu ku dhashay gobolka cabdilaahi suldaan tima cadde waxa uu ku dhashay gobolka ba saaxil ta gabiile ja togdheer xa sanaag waa tacdo Gabiley ta oo gabiile inaan laba kaa turi dadweyne waa inaan arsayn inaan ku adkaysanay xabadda waa hubtaa gabiile hadda waa ka timiye inaga hubi waa hubtaa waa hagaag daawadayaal go-aankaaga u dambeeya waxaad leedahay gabiile cabdilaahi suldaan tima cadde waxa uu ku dhashay gobolka ta gabiile jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad qur-aankii ugu horreeyey markii uu nebiga kusoo degay naxariistiiyo nabadgelyaba korkiisa aatee wuxuu joogay qur-aankii ugu horreeyey markii nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu soo dejiyey waxa uu joogay ba baytulmuqdis ta madiina ja maka xa qaarulxira dadweynaha igu dulsaar su-aasha dadweynaha dhibna waa hagaag dadweynaha nagula sugan stuudiya waxaan u baahana inaad nacaawisaan aniga iyo cabdiraxmaan waxaanan maraynaa su-aasha labaad su-aashuna waxay idin odhanaysaa
qur-aankii ugu horreeyey markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ku soo degay waxa uu joogay ba baytulmuqdis ta madiina ja maka xa qaarulxira imise qof ayaa le waxa uu joogay ba baytulmuqdis imise qof ayaa le ta madiina imise qof ayaa le ja maka imise qof ayaa le xa qaarulxira dhammaantoodba cod aqlabiyada waxay nagu yidhaahdeen nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu joogay qaarulxiraa aan ku raacna waa soo jeedin wuxuu dhan lakin go-aanka adigaa iskale aan ku raacna ku raacaysa haddayna qaldaan ka war waa caadi maadsiin 2 jeer bayna qaldaan 2 jeer baad fidaan malaynaya soo maa marka in asxaab baan rajeyna waa hagaag waxaynu wada eegi doonaa jawaabta su-aasha jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay qaarulxira waa god ku yaala magaalada maka su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa been fakatay runi ba ma ka dheerayso ta ma barbar socoto ja ma gaadho xa ma ka gaabiso jado ma gaadhaa ja oo ma gaadhaa ja been fakatay runi ma gaadho go-aankaaga u dambeeya adku kor qaad 2 ka mida kaa saara waagaag 2 ka mida ayaan kaa saari doonaa waxaa isku soo hadhay ma gaadhada been fakatay runi ja ma gaadho iyo xa ah ma ka gaabiso ja been fakatay runi ma gaadho waa hagaag jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha afaraad waxay ku odhanaysaa magaca sahra waa af carabi magaca u dhigma ee soomaaligii waa magaca sahra waa af carabi magaca u dhigma ee soomaaligahi waa ba ubax ta bilan ja ugbaad xa filsan يا عبد الرحمن حق هو في السنة حق هو في السنة go-aankaaga u dambeeya mar dadweynaha iyo marina laba kaad suuraayo ku haarsan laba ka midaan ku saarna filsan taas ingis codka kor u qaad filsan xaq oo filsana waa magaca sahra go-aankaaga u dambeeya cabdiraxmaan inaan laba kaa tuuraana gaarin duniya ka hadhan dadweynaha waa hagaag dadweynaha stuudiyaa nagula sugan ayaan u gudbi doonaa dabcan si ay nooga caawiyaan weydiintan waxay idin odhanaysaa weydiinta afraad ayaan marinaa aniga iyo cabdiraxmaanba inaad macaawisaan ayaan u baahanahay weydiintu waxay idin odhanaysaa magaca sahra waa af carabi magaca u dhigmaa waa ubax oo ba-a ta bilan ja ugbaad xa filsan imise qof ayaa le waa ba oo waa ubax aada ugu fiirsa imise qof ayaa le waa ta oo waa bilan imise qof ayaa le waa ja oo waa ugbaad imise qof ayaa le waa xa oo waa filsan isku soo noqono badi dadkaasi waxay nagu yidhaahdeen magacu waxa weeye waa ba oo waa ubax qur'aana haddayna saxaan ka war maadsiin sahra laakiin waxaad aragtay dee dad badan oo sahra loogu yeedhayo soo maa waa istacgo carabi ka noqday tala kan soomaaliga loogu yeedhay amba hooyadii sahra la yidhaha aad baan u salaamaya hooyaday daawana se sahro aad boo garanaysaa laga caawin weydiin doonaa insha allah inay saa sax ku tahay in kale ba oo ubaxa
كراعسة وهاجاك داود يالبا أوبا حاين وذيك دونا جوابت السؤال شو سيدا سيايي صح كتاي سؤال شناد tirada magacyada ceelka samsamka loo yaqaanaa waa tirada magacyada ceelka samsamka loo yaqaanaa waa ba 5 magac ta 4 magac ja 3 magac xa 2 magac Abdurrahman hada oo laba codka koroba hada laba xa oo laba waad ka sanaysaa kaaga u dambeeya qaadkaysana xa oo laba ayaynu wadeegi doonaa tirada magacyada ceelka samsamka loo yaqaanaa waa xa oo laba magac ayuu Abdurrahman yidhi jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay 6 meel xasaasiyada soo gaarnay 6 baynu soo gaarnay su-aasha 6aad waxay ku odhanaysaa dalka carbeed ee uu maro dhul baruhu waa dalka carbeed ee uu maro dhul baruhu waa ba suudaan ta kuwait ja soomaaliya xa liibiya taado kuweyd codka kor u qaad taado kuweyd ta oo kuweyda inaan laba kaa tuuro hal mar bay u kaarsanaan malaynaya miyaan ku adkaysanay dalka carbeed ee uu maro dhul baruhu waa ta oo kuweyda go-aankaaga u dambeeya ku adkaysanay Cabdiraxmaan hal mar bay u kaarsaneen inaan laba kaa tuura go-aankaaga u dambeeya ku adkaysanay dalka carbeed ee uu maro dhul baruhu waa ta oo kuweyda hal mar inaan laba kaa tuura u kaarsan go-aankaaga u dambeeya kuweydaasaan ku adkaysanay ta oo kuweyda ayaynu wadeegi doonaa dalka carbeed ee uu maro dhul baruhu waa ta oo kuweyda jawaabta su-aashaasi aynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay qalad ku tahay waa dalka Soomaaliya aad iyo aad lagu sacbiyo aad wanaagsan وهاجاك داود يال هدي الله يرحمه maalinta beritaa ama habeen dambe ayaynu وهاجاك barnaamijka xiga ayaynu halkaas ka sii anba qaadi doonaa tartamayaasha u tartamaya barnaamijka Kismaal hase yeeshee xilliga waxa ay soo gaadhay waqtiga aan idin soo weydiinaynay weydiinta aan idigu talagalnay warcelinta aad ku soo sameyn doontaan meel kasta aad joogtaan weydiinta aan caawa idin soo weydiinaynay intaynaan u gudbin waxaynu markaas eegi doonaa weydiintii hore iyo ciddii ku guuleysatay weydiintii ka horeysay ee aan idin soo weydiinay waxay ahayd abulahab magaciisu waxa uu ahaa abulahab magaciisu waxa uu ahaa ba cabdilmanaaf ta cabdilcusa ja cusayn xa cubayda waxa ay sax ku ahayd inuu ahaa cabdulcusa dadweyne aad u tiro badan ayaa runtii ka soo jawaabay oo weydiintaasi warcelin ku soo sameeyay kadib marka uu seefarku kala xulay ama dadkii faraha badnaa ka soo jawaabay waqtiyada qaaliga aad uga samaxdanino waxa nasiib u yeeshay in uu ku guuleysto Mustafa Ibrahim Abdullahi oo lambarkiisu yahay 988 Mustafa waxa filayaa inuu gula sugayo studio telefishinka qaranka Soomaaliland aad lagu saabiyaano ku soo dhawaado maslaxa diinteeda ويهي السلام عليكم مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو برنامج كسبان؟ أدبن وقدوه. مصطفى وحاتي وفي نصيب يا شيء إنه ويدين تكسر شباب. سؤال شباب كجواب سي بديت لك كوقات. المبدأ مركب وان سؤال شو قرأت. مركب وان قرأت. سؤال أنا أنت فرا بدنا وكسر جوابته. مركب سؤالك كجواب سو مرة ما يصلحت كل أبغى مريبات كويلة دوتا. كل ده أدب وقرأت شوي أنا وكنت ذلك. أي. الفكرة إن صفر استمر 10 تغير. هذه. سؤال سيدك ولا مقدمة ما كسمع اللي قد بدي. سؤالوس أدب مرتون نفسيه حويان أدب ذو في عين برنامج أدب نفسيين أو دير هجلين ده تقوى موت. أنا أغفر بدنا مرتين لقى فايدة. مصطفى إبراهيم وحات هاي ما في هو جولستي ويدينتي قرتي دويد أن أخريه والعين نكسو سمايي واحد هو جولستي ربتي أبغى مرينا 4G بلس أو
wireless waliba oo dad fara badan kula isticmaali karayaan xaafada joogtay marka su'aasha ka soo joogtay mise joogay xaafada joogtay way xaafadooda nimka wireless baa la yiraahdo jawaabta su'aasha ay ka wada warhaynaysaa qofkii macluumaadka doonaya dabcan dagsmaan waad ka daawan doontaa netka la yiraahdo isna ku jira aad baan inaad uga faa'iidaysataa ku rajeynaya adiga ku doorsinay soo dhaw insha Allah وهاجاك داوديال aad baan u hambalyeynaa Mustafa inta aan weydiintay soo weydiinin dabcan isagana waxa jira barnaamijka hadal oo hel oo isaguna scholarship ama waxbarasho oo runtii dad fara badan isagana barnaamijkan garab socda barnaamijka labaad laakiin hase yeeshee bisha barakeysan ee Ramadaan ee barnaamijka Smaal uu socdo waxaynu ku ogaan doonaa guuleystayaasha ku guuleystay deeqda waxbarasho ama alaabta kale inaynu isla halkan ku guddoonsiino qofka labaad ee barnaamijka hadal oo hel ku guuleystay mobile nooca casriga ah markaasi oo noocyadii ugu dambeeyay ayaan u yeeri doonaa waa Saciid Saleebaan Jaamac isna waxaan filayaa inuu studio nagula sugan yahay haloo saacideeyo Saciid Saleebaan Jaamac kulanti wanaagsan Saciid waxa tahay mid kamida macaamiisha ku guuleystay barnaamijka hadal oo hel oo dabcan qofkii ugu isticmaalka badnaa marka lacagta lagu shubto isaguna barnaamij joogto shirkadda ka socday ahaa dabcan barnaamijka Smaal baan ku ogaanaa sidaa sheegay qofka goorma lagu la soo hadlay Saciid waxaa laga soo hadlay 9 barkii ay rasal asal ugu ku guuleystay barnaamijka Saciid waxaad iga warantaa barnaamijkaas hadal oo hel wax macluumaad miyaad ka haysaa marka lacagtu ku shubay jirto shirkadda waa isticmaalka waan ku hadlaanaa marka tifokada aad u isticmaasho marka marnaba niyada mad gelin lacag ama abaalmarin kale ama hadiyada kale aad ku helaysaa marka nasiibkaaga fiicnaayo oo soo baxday aad wax barasho halka waxa lagu keenay mobile weyn oo runtii aad u culus oo mobiladii ugu dambeeyay casriga ahaa muraayadiisu aad u weyn tahay oo telefoonadiisii iyo softwarediisii wixii soo sita abaalmarintan adigaas kale aad baan kugu hambalyeynaa dad badan telefishinka qaranka ka daawanayaan oo caawa dhowr jeer baa lagu soo garaaci doona lagu oran doona saxaradii weyneed maxaa ku jiray maxaad markaa asxaabtii dadkii leedahay ugu dambeeyay iyaguna sidaas lagu guuleystaan insha Allah iyaguna guul badan rajeynaysaa iyaguna ku soo hambalyeyn doona insha Allah hambalyaa kulan aad lagu saabiyo Saciid وهاجاك داوديال وقتنا قالوا يا نادي قمها علنا وحنا سوق قالنا وقتي جريه إن مالك شو تشوفتان أو يدين برنامج كإدوار علنا كسو سمين دونتان اللي سووا يدين دونه ويدين تهبين كعوان يسووا يدين دونه وحين نقد دونتان أصحابي سيدا عد مجي عيسى القرآن كاللوغو شاقيوا أصحابي سيدا عد مجي عيسى القرآن كاللوغو شاقيوا با علي بن أبي طالب تا عثمان بن عفان تا عبد الله بن مسعود سيد بن حارث مركز الدعوة ديالنا تقول عليو أصحابي سيدا عد القرآن كمجي عيسى اللوغو شاقيوا با علي بن أبي طالب تا عثمان بن عفان تا عبد الله بن مسعود سيد ابن حارث ورعينت السحدة waxaa daawada ku soo diri doontaan lambarka gaaban ee 822 ayaa jawaabta saxda ba tay sax ku tahay ku soo diri doontaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa akhyaartay ugu sugan studio telefishinka qaranka Soomaaliland oo ilaa maanta nala joogay dabcan dad fara badan caawinayay oo kamida asxaabta studio telefishinka qaranka nagula sugan markaasi barnaamijkan nagala qayb galiyay waxaan sidoo kale iyagana aad ugu mahadcelinayaa akhyaarta ka qayb qaatay barnaamijkan inuu soo baxo ee magacyadu xagga dambe ka soo bixi doona Ramadaan Kariim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh تليفون صحوح مقال صافيو أسأل بلاهين صوتين وشوي وهدك تليفون صحوح مقال صافيو أسأل بلاهين صوتين وهدك تليفون صحوح مقال صافيو أسأل بلاهين صوتين وشوي